nabiga calayhi salaatu wasalaam nin yahuudi wuxuu ka iibsaday rati geel ayuu ka iibsaday kadib ninkii yahuudiga wuxuu yidhi lacagtii maadan siinaysi nabigu wuxuu yidhi waan ku siiyay calayhi salaatu wasalaam lacagtii hadii markaasuu ku yidhi haddaba laba marqaatay la imaaw ayuu yidhi yahuudigii nabiga maalintii kala iibsanayay wax saxaabi agtooda muusan joogin isagoo meesha fiiriyay ayaa Khusayma istaagay ku yidhi rasuulullaahi aniga idin arkay markaad kala iibsanayseen oo lacagta aad siinaysay ninkii yahuudiga muusan sii doodin wuu cabsaday wuu iska baxay nabiga u wacay Khusayma ku yidhi Khusaymo maxaad u tiri arrinka way arkay qof ma nala joogin markaan kala iibsanaynay markaasuu rasuulullaahi ayow qabarkii samad ayaan ka rumaysanay waxaan ka rumaysay inay lacag daraahim ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu dhow cadeeyay kadib wuxuu yidhi ninkan Khusayma la yiraahdo qofka u marqaati kaca marqaatigiisa uu ku filan yahay waayo marqaatigiisa wuxuu u dhigmaa laba qofood marqaatigooda waxa lagu magacaabi jiray xilligii saxaabada ninkii laba marqaati laha yacni laba qofood marqaatigooda